kadib dhacdooyinkii qaybtii hore iyo wixii uu sameeyey muuta markii uu isaga iyo raggiisu burburiyeen matooradii biyaha, waxaan ku soo laabanaynaa qaybtan si aan u sii wadno dhacdooyinka. Waxaan arkaynaa xiisadda ka jirta beerta, taasina waxay sabab u tahay matooradii biyaha ee la jebiyey. Markii Doja ay Yaman weydiiso waxa ay samayn doonaan, wuxuu ku yidhaahdaa, taasi waa shaqadaada adiga, maamulaha, ee noo sheeg waxa aad samaynayso, annagana waxaan samayn doonaa sida aad noo sheegto. Waxay ku jawaabtaa, haa dabcan, aniga ayaa maamulaha ah, waana xalinayaa. Dhammaantoodna waxay bilaabaan inay wada hadlaan. Waxay isula tashadaan, doodaan oo xal raadiyaan, laakiin hadalkooda wax natiijo ah kama soo baxdo. Sidaas darteed Doja waxay go'aansataa inay Burak la tagto si ay u eegaan xaaladda matoorada iyo haddii la hagaajin karo iyo in kale. Markay tagaan, Burak wuxuu isku dayaa inuu hagaajiyo, laakiin waxba kama soo baxaan. Halkaas ayuu Yaman ugu yimaadaa, wuxuuna hadal adag kula dhacaa. Wuxuu Doja u sheegayaa in matooradii gebi ahaanba burbureen, ayna suurtagal ahayn in la hagaajiyo wax kasta oo ay sameeyaan. Wuxuu ku leeyahay inay raadsato waddo kale oo ay dhibaatada ku xaliso, sababtoo ah habkan waxba ma tarayo. Kadib wuxuu ku leeyahay, waan ogahay qofka arrintan sameeyey. Qofkii sameeyey oo matoorada jebiyey waa Muuta. Aniguna waan tegayaa oo cashar ayaan u dhigayaa. Wuxuu gaariga qaataa isagoo aad u xanaaqsan. Burak, walaalkiis iyo gabdhihii ayaa gadaashiisa ka raaca si ay u sii gaaraan oo ay u joojiyaan. Yaman wuxuu gaarayaa meesha uu Muuta joogo, gaarigana wuu ka degayaa si uu ula hadlo. Saaxiibadiis ayaa soo gaaraya, way joojinayaan, waxayna isku dayayaan inay dejiyaan. Doja waxay ku leedahay, ha degdegin, si edeb leh ula hadal. Waxaan joognaa meel dadweyne ah, hana isku keenin dhibaato. Yaman wuxuu la hadlaa Muuta wuxuuna ku leeyahay, waxaad samaysay arrintan si fudud kuma dhaafi doonto. Haa, hadda caddayn ma hayo, laakiin maalinta aan caddaynta helo, wax kasta oo aad igu samaysay waan kaa qaadan doonaa. Wuu ka tegayaa oo baxayaa. Kadib Doja waxay Muuta ku leedahay, ma aanan kaa filayn sidaan. Waxay u muuqataa inaan hadda bilaabayo inaan ku barto xaqiiqadaada. Iyaduna way ka tagtaa. Muuta wuu xanaaqsan yahay. Doja waxay u tagtaa Yaman, wayna ugu mahad celisaa inuu hadalkeeda dhegaystay oo uusan degdegin. Kadib dhammaantood waxay ku noqdaan beerta. Waxay doonayaan inay xal helaan. Waxay wada fadhiistaan oo qof kasta wuxuu soo jeedinayaa fikrad. Ilaa Doja ay weydiiso, markii dhibaato sidan oo kale ah idinka dhigi jirtay oo aydnaan awoodin inaad waraabisaan dhulkiina beeraha, maxaad samayn jirteen? Waxay ku yidhaahdaan, xalka keliya waxaa haya nin waayeel ah. Isaga ayaa mas'uul ka ah biyaha asaasiga ah, laakiin cidna biyo ma siiyo. Doja waxay tidhaahdaa, aniga ii daaya. Waan qancinayaa, waxaana ka dhaadhicinayaa inuu biyo noo soo diro. Laakiin way uga digayaan, waxayna ku yidhaahdaan, waa nin waayeel ah oo waalan, waxaana laga yaabaa inuu waxyeello u geysto. Iyaduse waxay ku tidhaahdaa, maadaama uu nin waayeel ah yahay, waan garanayaa sida loola macaamilo. Carabkayga ayaan adeegsanayaa, hadal ayaan ku qancinayaa. Sidoo kale waxaan u geynayaa hadiyad wanaagsan oo uu ku farxo, taasina waxay naga caawin doontaa inuu na caawiyo. Kadib waxay la fadhiisataa saaxiibteed, labadooduna waxay bilaabaan inay ka fikiraan hadiyadda ay siinayaan, waxa ay samaynayaan iyo sida ay ula hadli doonaan. Dhanka kale, Burak iyo Yaman ayaa fadhiya iyagoo ku maadaysanaya gabdhaha. Laakiin Doja way joojisaa oo waxay ku tidhaahdaa, tani waa habka saxda ah ee loola macaamilayo ninka. Waxay ku tidhaahdaa, natiijada indhihiinna ayaad ku arki doontaan. Kadib waxay dhab ahaantii diyaariyaan hadiyaddii ninka waayeelka ah, waxay u keenaan tasbiix iyo sidoo kale baklafa. Waxay go'aansadaan inay u tagaan. Laakiin iyagoo halkaas taagan oo eegaya tasbiixdii ay soo iibiyeen, waxay arkaan diyaarad yar oo dushooda joogta oo duubaysa. Qofka arrintaas samaynaya waa Muuta iyo saaxiibkiis oo daawanaya waxa dhacaya. Saaxiibka Muuta wuxuu la yaabaa hadiyadda Doja soo qaadatay. Wuxuu Muuta ku leeyahay, waxay u muuqataa inay hadiyad u keentay. Muuta wuu xanaaqayaa wuxuuna ku leeyahay, jooji hadalkaas nacasnimada ah, mar dambe sidaas ha u hadlin, hana i dhibin. Aniga qudhayda ayaan isku filnayn. Doja waxay go'aansataa inay keligeed u tagto ninka waayeelka ah, laakiin Yaman ma aqbalo inay keligeed tagto, wuxuuna go'aansadaa inuu raaco. Labadooduba gaariga ayay fuulaan. Waxay isla tagaan. Markay meesha gaaraan, diyaaraddii yarayd weli way duubaysaa oo la socotaa. Doja ayaa gaariga ka tegta, kadibna Yaman. Markuu guriga geeyo, Yaman wuxuu go'aansadaa inuu bannaanka ku sugo si ay iyadu keligeed ula hadasho ninka. Laakiin ninkii waayeelka ahaa ayaa bannaanka ugu soo baxa isagoo qorisita. Doja waxay la hadlaysaa oo ku leedahay, ma kuu imaan karaa? Waxaan rabaa inaan arrin muhiim ah kula hadlo. Si lama filaan ah ninkii wuxuu diyaariyaa qorigiisa, laakiin ma dhaawacayo Doja ama Yaman. Wuxuu ku dhuftaa diyaaraddii dushooda joogtay, xiriirkiina Muuta wuu go'ayaa, mana arki karo waxa meesha ka dhacaya. Ninkii waayeelka ahaa aad ayuu ugu farxaa hadiyadda. Kadib wuxuu Doja weydiinayaa Yaman, wuxuuna ku leeyahay, wiilkan ma ku dhibaa oo ku daba ordaa? Ii sheeg oo waan ciqaabayaa. Doja waxay si qarsoodi ah u eegtaa Yaman. Yaman wuxuu ku leeyahay, ha samayn. Doja waxay ninka ku tidhaahdaa, maya aabbo, waa qof aad u wanaagsan, aad buuna ii jecel yahay, Yamanna waa ninkayga. Ninkii waayeelka ahaa wuxuu Yaman ku yidhaahdaa, kaalay wiilka aan sodoga u ahay, gacantayda dhunko. Yaman ayaa u soo dhowaada, dhab ahaantiina gacantiisa ayuu dhunkadaa. Kadib ninkii wuxuu ka codsadaa inuu ugu yeero aabbo. Yaman wuxuu ku yidhaahdaa, haye aabbo. Doja waxay markaas u sheegtaa in iyada iyo Yaman isqabaan, shaqaduna mashquulisay, sidaas darteed aysan marar badan u imaan. Waxay ku tidhaahdaa mararka qaarkood ayay soo booqdaan. Waxay ka faa'iidaysanayaan in ninku xusuustiisu dhibaato leedahay, sidaas darteedna uu hadalkooda rumaysan doono. Runtii ninkii wuu rumaystaa. Markay ka codsadaan biyo ay beertooda waraabiyaan, wuu oggolaadaa.
warka guushooda wuxuu gaarayaa beerta, qof walbana wuu ogaadaa in Doja ay mar kale awooday inay biyihii u soo celiso. Aad bay u farxaan, gaar ahaan aabaheed oo go'aansada inuu mar kale ku noqdo qasrigiisa kadib markii gabadhiisu ku guulaysatay inay nolosha beerta dib u soo celiso. Dhanka Doja iyo Yaman wakhtigaas way wada hadlayaan. Ninkii waayeelka ahaa gudaha ayuu u galaa si uu baklafada ugu diyaariyo inay wada cunaan. Doja waxay Yaman ku tiraahdaa, ma aragtay? Waxaan kuu sheegay inaan xalin karo oo aan biyaha idiin soo celin karo. Yaman wuxuu ku yidhaahdaa, aad baad u xun tahay. Sidee ayaad isaga been ugu sheegi kartaa? Miyaadan arkin sida uu u faraxsan yahay inaad joogto? Wuxuu kuu haystaa gabadhiisa, marka aad baxdana mar kale ayuu dhibtoon doonaa. Waxay ku jawaabtaa, anigu ma xuma. Ma awoodin inaan runta u sheego. Intaa waxaa dheer, wuu faraxsan yahay, aniguna waan farxiyey, taasina waa wax wanaagsan. Intaysan hadalkooda dhammaystirin, ninkii waayeelka ahaa ayaa u soo baxa oo ku yidhaahda, maxaa jira carruur? Ma isdagaalamaysaan? Waxay ku jawaabaan, maya, sideen u dagaalami karnaa? Aad ayaan isugu fiicanahay. Wuxuu ku yidhaahdaa, aad bay u fiican tahay. Kadib wuxuu ka codsadaa inay isku duubtaan si uu u hubiyo. Labadooduba way isku duubtaan iyagoo aan midkoodna kan kale jeclayn. Si lama filaan ah, iyagoo la hadlaya, ninkii ayaa hortooda ku dhacaya. Aad bay u naxaan oo uga walwalaan. Waxay isku dayaan inay caawiyaan, Yamanna wuxuu wacaa ambalaaska. Runtii waxaa loo qaadaa isbitaalka. Labadooduba bannaanka ayay istaagaan iyagoo ka baqaya xaaladdiisa. Warkaas wuxuu Muuta uga yimaadaa xoghayaha isbitaalka. Wuxuu ka walwalaa Doja, sidaas darteed isaga iyo saaxiibkiis waxay go'aansadaan inay isbitaalka tagaan si ay u hubiyaan. Markay isbitaalka yimaadaan, Yaman wuu yaabaa, wuxuuna Doja ku yidhaahdaa, maxaa bahaladan halkan keenay? Waxay ku tiraahdaa, adiguna ma u malaynaysaa inay iyaga farxad gelinayaan inay yimaadaan? Ha yimaadeen ama ha gubteen, adigu ha ka welwelin. Kadib dhakhtartii ayaa soo baxda oo ku tiraahda, maxaa idinku kalifay inaad u keentaan macmacaan? Ninkani sonkor ayuu qabaa, waadna dili karteen. Waa inaad dadka waayeelka ah weydiisaan cudurradooda ka hor intaadan wax u geyn. Arrintaas eeb ma aha. Intaa waxaa dheer, xaaladdiisa ma aragtaan. Wuxuu diiday in kalkaaliyaashu wax ka qabtaan, wuxuuna rabaa gabadhiisa iyo ninkeeda. Haddii aad taqaaniin keena. Labadooduba way is eegaan kadibna gudaha ayay galaan. Beertana biyihii way soo gaareen. Arrintaas qof walba way farxad gelisay, gaar ahaan Safad oo ah walaalka Yaman. Nasriin waxay Safad ku leedahay, idina adiga kama walwalsana, adiga xaaskaaga, gabadhaada iyo walaalkaa midna. Wuxuu beerta oo dhan ka iibin doonaa Muuta, annaguna waxba kama heli doono. Warkuna beerta oo dhan ayuu ku faafay, adiguna halkan ayaad fadhidaa oo dalaga waraabinaysaa adigoon dan ka lahayn waxa dunida bannaanka ka dhacaya. Safad wuxuu ku jawaabaa, walaalkay sidaas ma samayn karo. Suurtagal ma aha. Haddii dhibaato jirto wuu xalinayaa, mana oggolaan doono in nala dhibaateeyo. Waxay ku tiraahdaa, sidaas iska joog, iska noqo qof wanaagsan oo naxariis badan, ilaa ugu dambayn aan waxba haysan oo aniga iyo adiga waddada fadhiisanno oo aan dadka wax ka barino. Way ka tagtaa oo baxdaa. Waxaan mar kale ku laabanaynaa isbitaalka. Waxaan aragnaa Doja iyo Yaman oo ag fadhiya ninkii waayeelka ahaa. Wuxuu qabtaa gacmahooda labadaba, wuxuuna gacmahooda isku daraa. Muuta ayaa xanaaqa, meesha ayuu ka baxaa isagoo saaxiibkiis daba socda. Dhakhtarada Bushra iyaduna Yaman ayay ka maseertaa oo dhinac ayay u dhaqaaqdaa. Ninkii waayeelka ahaa wuxuu Yaman ku yidhaahdaa, Yaman, ii ballanqaad inaad ilaalin doonto, weligaa aadan murugayn doonin ama dhaawici doonin, oo aad ishaada ku hayn doonto. Yaman wuxuu eegaa Doja, iyaduna islamarkiiba waxay ku tiraahdaa, haa, aabbo, u sheeg inuusan i murugayn oo mar walba i raali geliyo. Ninkii waayeelka ahaa wuxuu Yaman ka sugayaa jawaab. Yaman ayaa xaalad adag ku dhacaya, wuxuuna go'aansadaa inuu aqbalo waxa uu doonayo. Wuxuu ku yidhaahdaa, waan kuu ballanqaaday. Kadib labadooduba gacmahooda way kala qaadaan, waxayna si kalgacal leh ula hadlaan ninka. Dhakhtarada Bushra ayaa timaada waxayna u sheegtaa in ninku ugu yaraan hal habeen isbitaalka joogo ilaa xaaladdiisa laga hubiyo. Waxay ku tiraahdaa xaaladdiisa awgeed ma habboona inuu keligiis ku noqdo aqalkiisa. Laakiin ninkii wuxuu diidaa inuu isbitaalka sii joogo, wuxuuna doonayaa inuu gurigiisa ku noqdo. Sidaas darteed waxay go'aansadaan inay beerta la tagaan oo iyaga qudhoodu daryeelaan. Beerta waxaa soo gaaraya warka ah in ninkii waayeelka ahaa xanuunsaday. Dhammaantood way ka murugoodaan, waxayna rajaynayaan inuu caafimaad qabo, sababtoo ah arrintani si xun ayay iyaga u saamayn doontaa. Waxay ka baqayaan hadalka dadka tuulada iyo inay iyaga sabab u yihiin xanuunkiisa. Burak ayaa hortooda fadhiya oo uga warramaya xaaladda ninka. Wuxuu u sheegayaa inuu xanuunsaday sababtoo ah baklafadii ay u direen maadaama uu qabo sonkorow. Wuxuu sidoo kale u sheegayaa in ninku hal maalin la joogi doono. Taasi waxay ahayd sababta uu u diiday inuu isbitaalka joogo, islamarkaana uusan keligiis ugu noolaan karin aqalkiisa isagoo sidaas u xanuunsan. Kadib wuxuu eegayaa dhammaantood oo wuxuu ku leeyahay, waxaa jira wax ay tahay inaad dhammaantiin ogaataan. Waa inaad arrintaas ku dhaqantaan. Ninkani wuxuu u malaynayaa in Doja ay tahay gabadhiisii dhimatay, wuxuuna u malaynayaa in Yaman uu yahay ninka Doja. Sidaas darteed dhammaanteen waa inaan sidaas ula macaamilnaa. Khulusi ayaa xanaaqsan, wuxuuna ku leeyahay, ma waxaad rabtaa inaan gabadhayda nin kale u nisbeeyo oo aan sidii waxba u dhicin ula dhaqmo. Waxaa lagu yidhaahdaa, fadlan hal habeen oo keliya si habeenkan nabad ugu dhammaado, dhulkuna u waraabsamo, dadka tuuladuna ay naga daayaan. Khulusi wuxuu ku qasbanaadaa inuu aqbalo arrintaas, dhammaantoodna waxay go'aansadaan inay matalaan si maalintooda u dhaafto. Kadib ninkii waayeelka ahaa wuxuu yimaadaa meesha, qof walbana si wanaagsan ayuu u soo dhoweeyaa. Waxa yaabka leh ayaa ah inuu garanayo Brihan si kalgacal lehna u salaamo, wuxuuna ku yidhaahdaa, muddo dheer kuma aanan arag.
markuu arko khulusi isaguna wuu garanayaa wuuna salaamayaa. Wuxuu ku leeyahay, goormaad Istanbul ka soo noqotay wiil yahow? Wuxuu u malaynayaa in Brihan iyo khulusi ay isqabaan. Sidaas darteed labadooduba waxay ku qasbanaadaan inay sidaas ula dhaqmaan hortiisa. Wuxuu ka codsadaa inay isku duubtaan si uu u hubiyo inay nolol wanaagsan ku nool yihiin. Labadooduba waxay ku qasbanaadaan inay matalaan inay isjecel yihiin oo weli isqaba yihiin sida uu ninku aaminsan yahay. Khulusi aad ayuu u farxaa sababtoo ah Brihan ayuu ka helaa. Kadib Brihan waxay ninka waayeelka ah ka codsataa inuu gudaha galo oo qadada cuno, waxayna ku tidhaahdaa, waxaan kuu sameeyey cunto aad u jeclaan doonto. Wuxuu ku jawaabaa, dabcan, yaa iloobi kara cuntadaada, Brihan. Cuntadaada lama dhaafo. Cuntadii ayaa loo dhigaa. Doja iyo Yaman ayaa hortiisa fadhiya. Markuu weydiiyo sababta aysan isaga ula cunayn, waxay ku yidhaahdaan inay rabaan inay isaga la fadhiistaan oo keliya. Dhanka kale, Khulusi wuxuu go'aansadaa inuu isaga iyo darawalkiisa qasriga ku noqdo. Intay jidka ku jiraan waxay ka hadlayaan wixii beerta ka dhacay iyo qofkii burburiyey matoorada biyaha. Darawalku wuxuu u sheegayaa inuu Muuta ka shakisan yahay, sidoo kale Yaman uu ula tegay oo uu la murmay arrintaas darteed. Khulusi wuxuu leeyahay, aan tagno. Waxay u muuqataa inaan dagaal geli doono. Aan aragno waxa Muuta isaga iyo aabbihiis ay nagu dambayn doonaan. Beerta gudaheeda, Yaman iyo Doja waxay ninkii waayeelka ahaa geeyaan qol ku yaalla beerta si uu u seexdo. Laakiin wuxuu ku yidhaahdaa qolku aad buu u weyn yahay, wuxuuna doorbidayaa inuu bannaanka hortiisa seexdo. Labadooduba way diidaan, waxayna ku yidhaahdaan inuu qolka gudaha ku seexdo. Laakiin wuxuu u sheegayaa inuu sidaas caadaysan yahay, uuna neceb yahay inuu meel xiran ku seexdo. Kadib Yaman wuxuu ninka hortiisa Doja kaga sheekaynayaa wanaaggeeda. Wuxuu ku leeyahay, gabadhaada si wanaagsan ayaad u korisay. Maasha Allah, qurux, daryeel, macaan iyo kaftan, wax ka dambeeya ma jiro. Kadib wuxuu sii wadaa hadalka, wuxuuna ku leeyahay, gabadhaadu kibir ma leh, mar walbana waa qof is-hoosaysiisa oo dadka jecel, mana laha madaxaday. Ninkii waayeelka ahaa wuxuu ku yidhaahdaa, haddii xaaladdu sidaas tahay oo aad isjeceshihiin, isku duub iyada aan arkee. Labadooduba mar kale ayay isku duubtaan. Kadib Safad ayaa yimaada, wuxuuna Yaman ka codsadaa inuu la hadlo. Labadooduba waxay aadaan gudaha beerta xoolaha, halkaas oo Safad ku yidhaahdo, waxaan maqlay hadal sidan oo kale ah oo beerta ku dhex wareegaya, walaalkay, laakiin fadlan ha iga xanaaqin, hana qalbiga ka qaadan. Iigu jawaab adigoon xanaaqin. Yaman wuxuu ku yidhaahdaa, eeb ayay kugu tahay Safad. Adigu waxaad tahay walaalka iga weyn. Dunida oo dhan waan ka xanaaqi karaa, laakiin adiga ma xanaaqi karo. Adigu waxaad tahay walaalkay. Safad wuxuu ku yidhaahdaa, runtii ma heshiis baa adiga iyo Muuta idinka dhexeeya inaad beerta isaga ka iibiso. Yaman wuxuu ku jawaabaa, ma waalatay Safad. Marnaba sidaas ma samaynayo. Haddii maalin aan beerta iibiyo, Muuta ayaan ka iibinayaa. Dabcan maya. Yaa hadalkaas kuu sheegay? Safad wuxuu ku leeyahay, hadalkaas meel walba ayuu marayaa. Maadaama aad hadda tiri maya, waan ku aaminsanahay oo waan ku kalsoonahay. Yaman wuxuu u sheegayaa, waxaan u tegay Muuta si aan ugala hadlo sababta uu matoorada u jebiyey, laakiin wax heshiis ah lama aanan gelin, mana geli doono. Safad wuu degaa. Wuxuu ku yidhaahdaa, waad i dejisay walaalkay. Ilaahay ha ku dejiyo, hana ku wanaajiyo sida aad qalbigayga u dejisay oo aad iigu farxad gelisay. Yaman wuxuu ku yidhaahdaa, yaa hadalkaas kuu sheegay? Xaaskaaga ma aha. Ha dhegaysan hadalka dumarka si aynaan isu kharibin. Kadib Safad wuxuu isku duubaa walaalkiis, dhulka ayuu ka qaadaa isagoo leh, adiga ayaa ah qofka keliya ee aan dunida ku leeyahay. Kadib wuu ka tagaa. Brihan ayaa timaada, waxayna wiilkeeda weydiisaa wixii dhex maray isaga iyo walaalkiis. Wuxuu u sheegayaa, wuxuuna ogeysiinayaa in xaaska walaalkiis aysan wanaag u wadin. Waxay ku tidhaahdaa, arrintaas aniga iidaa. Walaalka waa nacas, laakiin xaaskiisa aniga ayaa edbin doona. Ninkii waayeelka ahaa, dhakhtarada Bushra ayaa u tagta si ay sonkorta uga cabbirto oo ay u hubiso xaaladdiisa. Ninkii waayeelka ahaa wuu u mahadceliyaa, wuxuuna ku leeyahay, waxaan kuu rajaynayaa inaad guursato qof wanaagsan sida Yaman oo kale, oo aad farxad ku noolaato sida gabadhayda. Waxay ku tidhaahdaa, aamiin. Markay baxdo, Doja ayaa agtiisa fadhiisata. Wuxuu ka codsadaa iyada iyo Yaman inay tusaan gurigooda. Doja waxay ku tidhaahdaa gurigoodu yar yahay oo aysan muhiim ahayn inuu arko, waxaana u wanaagsan inuu nasto. Laakiin wuu ku adkaystaa. Labadooduba meel ayay dhinac u baxaan oo waxay ka wada hadlaan, guri noocee ah ayaan tusaynaa. Annagu guri ma lihin. Haddii aan guriga yar ee Yaman tagno, wuxuu ogaanayaa inuu keligiis yahay oo aan wax naga dhexeeya jirin. Yaman wuxuu ku yidhaahdaa, ha welwelin. Kadib waxay ugu noqdaan ninkii waayeelka ahaa oo ku yidhaahdaan, aan tagno aabbo, gurigeenna ayaan ku tusaynaa. Dhanka kale, Khulusi wuxuu u tagaa Muuta iyo aabbihiis si uu ula hadlo. Wuxuu Muuta uga digayaa oo ku leeyahay, adiga ayaa arrintan sameeyey. Haddii ay mar kale dhacdo, waan ku ciqaabi doonaa. Haddii wax kale oo beerta ka mid ah ay dhacaan oo aad lug ku leedahay, waxaad la kulmi doontaa cawaaqibka. Waxaad u baahan tahay inaad naftaada ilaaliso. Aabbaha weydii Khulusi oo wuxuu kuu sheegi doonaa qofka uu yahay. Wuu ka tagaa. Aabbaha Muuta ayaa markaas la hadla Khulusi, wuxuuna ku yidhaahdaa, ka fogow Khulusi. Haddii Khulusi mar kale wejigayga arko, aniga iyo adiga waynu iskhilaafi doonaa. Ka fogow Doja iyo beertaba gebi ahaanba. Wuxuu kaloo ku yidhaahdaa, haddii aan maqlo inaad midkood ku dhowaatay, aniga ayaa ku ciqaabi doona, ee ma aha Khulusi. Wuu ka tagaa, Muutana isagoo aad u xanaaqsan ayuu halkaas fadhiistaa. Mar kale waxaan ku laabanaynaa beerta. Ninkii waayeelka ahaa, markii uu dhammaystay inuu guriga yar arko, wuxuu go'aansadaa inuu bannaanka hortiisa seexdo. Labadooduba way yaabaan, waxayna ku yidhaahdaan, maxaad bannaanka u seexanaysaa?
waxaan kuu diyaarinay qol qurux badan oo waasac ah. Wuxuu ku yidhaahdaa, maya, noloshayda oo dhan bannaanka ayaan ku seexan jiray. Mar walba dhexda dalagga ayaan ku seexan jiray, mana jecli inaan meel cidhiidhi ah oo derbiyo ku wareegsan yihiin ku seexdo. Ma awoodaan inay ka hor istaagaan, sidaas darteed labadooduba waxay ku qasbanaadaan inay habeenkaas guriga gudaha ku qaataan. Sida caadiga ah, marka ay labadooduba is arkaan, kama daalaan inay isdhibaan oo ay iskaftamaan si xun, sidii iyagoo midba midka kale madaxa kaga dhashay. Mar kasta oo Doja daaqadda ka eegto si ay u aragto inuu ninkii waayeelka ahaa seexday iyo in kale, waxay ogaataa inuu weli soo jeedo. Sidaas darteed waxay ku qasbanaadaan inay isla meesha seexdaan. Doja waxay go'aansataa inay bannaanka seexato, Yamanna wuxuu gudaha qolka u galaa inuu seexdo. Habeenkii dhexe, Yaman wuxuu ku soo toosaa dhawaaqa saacadda digniinta si uu daawo ugu geeyo ninkii waayeelka ahaa. Doja way soo jeedaa, laakiin waxay iska dhigtaa inay huruddo si ay u aragto sida uu u daryeelayo. Kadib wuxuu ugu soo dhowaadaa Doja si uu busto ugu daboolo. Markaas ayay gacantiisa qabsataa, waxayna ku tidhaahdaa, kaalay, ii sheeg, miyaad jacayl ii qaaday? Daryeelkan caadiga ma aha. Hadda waad ii daboolaysaa, subaxdiina rasaasta ayaad hortayda u istaagtay. Wuxuu ku yidhaahdaa, waxaas oo dhan waxaan u samaynayaa sababtoo ah waxaan aabbaha u ballanqaaday inaan ku ilaalin doono. Wax kale maskaxdaada ha gelin. In ragga oo dhan ay ku daba ordaan macnaheedu ma aha inaan aniguna mid ka mid ah ahay. Anigu qofna daba ma ordo, Doja. Wuu ka tagaa oo gudaha ayuu galaa. Doja waxay ku tidhaahdaa, suurtagal ma aha, beenaale baad tahay. Keliya ma rabtid inaad kibirkaaga jebiso hortayda. Aniguna waxaan kaa dhigi doonaa inaad adigu qirato, Yaman. Kadib way seexataa, waxayna ku riyootaa riyo xun. Riyadeeda waxay ku aragtaa iyada iyo Yaman oo isqaba, iyaduna noqotay qof beeraley ah oo caadi ah, kuna nool beerta isaga. Si lama filaan ah waxaa hortooda istaaga gaari aad u qurux badan, waxaana ka soo degaya Nasriin iyo Safad. Nasriin iyo Safad waxay ka soo laabteen Faransiiska, waxayna xiran yihiin dhar aad u qurux badan oo casri ah. Labadooduba waxay Doja ula hadlaan si kibir leh. Doja waxay riyada ku ogaataa in waxa ka dhigay dhammaantood hodan iyo inay sidan u qurux badan u nool yihiin ay yihiin sawiradeedii iyo qorshayaashii ay ku samaysay buuggeeda, kaas oo Nasriin ka xaday. Doja waxay buugga ka qaadataa Nasriin iyadoo xanaaqsan, waxayna Yaman ku qaylisaa oo ku tidhaahdaa, kuwani waa hantidayda. Yaman wuxuu ku yidhaahdaa, marnaba ku oggolaan maayo inaad u safarto Faransiiska oo aad iga fogaato. Waxaasna waxay xaq u leeyihiin Nasriin. Doja way xanaaqdaa, buuggii ayay qaadataa, waxayna ka carartaa iyaga. Kadib waxay ka soo toostaa riyadii iyadoo cabsi badan. Waxay mar kale gashaa qolka Yaman si ay wax uga raadiso. Waxay aragtaa sawirkiisa isaga iyo hooyadeed, kadibna si tartiib ah ayay u xirtaa sanduuqa. Laakiin sanduuqu cod ayuu sameeyaa, Yamanna wuu soo toosaa oo ku yidhaahdaa, maxaad halkan ka samaynaysaa? Waxay ku tidhaahdaa, waxba ma samaynayn. Anigu halkan ayaan fadhiyey. Wuxuu ku yidhaahdaa, sidee? Waxaan kaa soo tegay qolka fadhiga. Maxaa qolkayga kuu keenay? Si lama filaan ah waxay maqlaan albaabka oo la garaacayo. Waxay ogaadaan in ninkii waayeelka ahaa uu ka soo toosay codkooda iyo hadalkooda. Labadooduba bannaanka ayay u soo baxaan, waxayna u xaqiijiyaan inuusan dagaal dhex marin, balse ay si caadi ah u wada hadlayeen. Laakiin ninkii waayeelka ahaa wuxuu ku yidhaahdaa inay gudaha qolka galaan, isaguna albaabka ayuu ka xirayaa. Labadooduba qolka ayay galaan, ninkii waayeelka ahaana wuxuu bannaanka albaabka ka sii joogaa. Doja ma awoodo inay qolka ka baxdo si ay fadhiga ugu seexato, sidaas darteed labadooduba waxay ku qasbanaadaan inay isla seexdaan. Subaxdii waxay arkaan diyaaraddii beerta ilaalinaysay oo gaartay ilaa qolka Yaman, waxayna duubaysaa isaga iyo Doja oo isku duuban. Waxaas oo dhan Muuta ayaa arkaya. Aad ayuu u xanaaqaa, wuxuuna caro darteed jebinayaa qalabkii gacantiisa ku jiray. Wuu ka xanaaqsan yahay waxa uu arkay, wuxuuna Doja ka dareemayaa masayr. Markaas Yaman isaguna wuu soo toosaa, wuxuuna la yaabaa xaaladda ay ku jiraan. Wuxuu Doja ku toosiyaa isagoo leh, maxaad samaynaysaa? Waxay ku tidhaahdaa, adiga ayaa barkintii iga qaaday oo ii soo jiiday. Nacas yahow. Wuxuu ku yidhaahdaa, haa, runtii aniga ayaa ku qabsaday sidii qof dabaqle ah. Kadib labadooduba bannaanka ayay u baxaan, waxayna eegaan ninkii waayeelka ahaa, laakiin ma helaan. Markii dambe waxay ka helaan isagoo badda agteeda fadhiya. Waxay u soo dhowaadaan, waxayna arkaan isagoo ooyaya. Wuxuu la hadlaa, wuxuuna ku yidhaahdaa, ma garanayo waxa ka xun, in qofku iloobo iyo inuu wax walba xasuusto. Waad mahadsan tihiin. Labadiinuba waxaad tihiin dad wanaagsan. Laakiin hadda wax walba waan xasuustay. Gabadhaydu waxay ku dhimatay dhulgariir, aniguna waxaan ahaa qofkii keliya ee ka badbaaday. Adiguna qof aad u wanaagsan baad tahay, Doja, adiguna sidoo kale Yaman. Waxaan idiin rajaynayaa nolol farxad leh. Aad baad ugu mahadsan tihiin maalintii farxadda lahayd ee aad ila qaadateen. Kadib waxay Yaman ku qaadaan gaarigiisa si ay gurigiisa u geeyaan. Markay gaariga ka degayaan, ninkii waayeelka ahaa ayaa Yaman macsalaameeya, wuxuuna ku yidhaahdaa, haddii aabbaha noolaan lahaa, hal wax oo keliya ayuu kuu sheegi lahaa, Yaman. Waa inaad ka digtoonaataa khulusi. Kadib wuu ka tagaa oo gurigiisa ayuu galaa. Yaman aad ayuu ula yaabaa, wuxuuna isweydiinayaa sababta ninkii waayeelka ahaa ugu sheegay inuu khulusi ka digtoonaado, laakiin ninkii jawaab kama bixin. Yaman meesha ayuu taagan yahay isagoo aan fahmin sababta uu sidaas ugu sheegay. Dhanka kale Doja waxay beerta dhex socotaa, waxayna aragtaa eegeeda oo jaakad ku dul cunaya. Jaakaddii ayay ka qaadaa, waxayna la yaabtaa muuqaalkeeda, iyadoo isweydiinaysa jaakaddan cidda iska leh. Kadib waxay dib u xasuusataa markii ay shirkaddii aabaheed joogtay, nin aanay garanayna gudaha u soo galay isagoo xiran isla jaakaddan. Markaas ayay garataa ninkii, halkaasna qaybtu way ku dhammaanaysaa. Maxaad u malaynaysaan sababta ninkii waayeelka ahaa ugu sheegay Yaman inuu ka digtoonaado khulusi?
yaa leh jaakadda uu eeyga doja ku dul cunayay? taas ayaan ku ogaan doonaa qaybta xigta. haddii aad janalka ku cusub tahay subscribe saar, haddii aad horay nola joogtayna like saar muuqaalka si uu kuu soo gaaro muuqaaladeenna xiga. mahadsanid.